waxaa maalintii Jimcaha ayna dhaaftay qarax lagu dilay dad u badan dhalinyaro aqoon-yahano ah oo ku sugnaa makhaayad jalaatada lagu iibiyo oo ku taala agagaarka kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi. Weerarada lagu qaado goobaha dadweynaha ayaa ugu soo noqnoqda magaalada Muqdisho. Axmed Cabdullaahi Maxamed Kaboole oo bartay arrimaha amniga ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa sheegay in weerarada lagu qaado goobaha dadweynaha ay ka mid tahay qaababka dagaal ee ururada argagixisada. Caashe Ibraahim Caashacuud oo kula xiriirtay khadka telefoonka ayuu faahfaahiyay qaabka looga hortagi karayo dhacdooyinka noocan oo kale ah. runtii waxaan ka tacsiinayaa ubixii asbuucii hore la wada aasay oo sida fooshaxan runtii ku dhintay indhaha Soomaaliyeedna aad moodid inay ahaayeen in la daminayay iyo xijada dhalinta iyo dadka Soomaaliyeed marka aad iyo aad uga tacsiinaynaa marka aad iyo aad wax looga xumaaday runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa in waalidiintoodii iyo ummadda Soomaaliyeed samir iyo iimaan Allah ka siiyo. آمين. مركا أحمد أديك كشخصيا واحد تهاجم برتاي علم السياسة برتاي درع أمني جرا تقصص جارة أولى قلها دجان كستوكم وتكتر سنتها مركا بصير ستطيق راح هذا نوع عن صون نقضوا كله مال أي جوجان ضد إسكا عادية قاب كيف لو قبل كرامات سلالة عاشر روتي ضلك رد عن شوقنا هي ضلك صوماليا معهم روتي ضل حوجا مركي أمان يلا فيريا أما قاب الله فرقله قابل الفرق دي كرهنتي معها مرك الله فيريا علميا iyo wadanka xadaarada iyo meel kasta laakiin aragtida meel kasta ay joogto yani waxay leeyihiin qaab ka dhaxeeya ama Ciraaq ka joogto ama Afghanistan ka joogto ama kuwa Soomaaliya ahaadeen hal way ayay raacaan runtii ma ahan waxaan la qadaha warfare ma ahan ama dagaal la iskaga soo horjeedo ma ahan maxaa yeelay aragtida badana waxay tilmaamaysadaan dadka aan dagaalka ku jirin oo aan goobaha militariga badana aan joogin waxayna u fuliyaan qaab yani qarsoodi ah ayay u fuliyaan mana ahan dad runtii ixtiraam u haya xeerarka dagaalka oo kale waqtiga ay ku dagaalamayaan dad la ogyahay ma aha sida ay sheegayaan waxa ay rabaan baaxadda ay rabaan iyo mustaqbalka ay rabaan leeyihiin yani adduunyada muslimiin ka dhigaynaa oo kale aad ay u weyn tahay marka argagixisada Soomaaliya qaabka lagu hortagi karo runtii aniga ahaan kahortag intaan gaarin waxaad arabka ku dhufatay inay beegsadaan dadka aan dagaalka ku jirin maxay tahay sababta iyo ujeedada ka dambaysa sababta ka dambaysa waxa weeye waxay rabaan in ay maskaxda dadka inay cabsi abuuraan ay rabaan dhageystayaal ay leeyihiin dhageystayaashu marka waxay badanaa isticmaalaan meesha ugu dhow ee bartilmaameedsadaan si ay u abuuraan cabsi dadka bulshada ah hadafkeeduna badanaa waxaa waaye in ay muujiyaan awoodooda inay muujiyaan shacabku dhageystaan oo mid dhibaato la sameeyo si dhibaatadaas sameeyo dadka kale ay uga baqaan waana falan caadi ah maadaama aysan meelo waaweyn iyo awood iyo aysan samaynaynin halkii falo ay sameeyaan waxay ka dhigayaan fal tusaale u ah dadka kale haddii ay wadadan ama ay argagixisadu ay rabaan ismari waayaan mar haddii targetka ugu weyn ay leeyihiin ay tahay dadka shacabka ah marka dadka shacabka ah boos ma uga banaan yahay in arrintan iyaga lidka kuwa inay wax ka qabtaan waxaa jira wax dadka shacabka ah runtii qaabka ay wax uga qaban karaan ay intay abaabulaan hadda dalkii ma ahan dad anarchism system ma ahan oo dalkii dawladda ka jirta laakiin dawladdii ka jirta waxaa la rabaa marka in ay sameeyaan waxaan la yiraahdo community engagement warfare oo ay bulshadii ay ilaal ay tusto wadadii argagixisadan iyadoo wada jir ah runtii looga hortagi lahay sababta hadda waxaan ku soo qaadanaa caashoy program waxaa jira Maraykanka runtii oo keenay barigi kolley Vietnamna way isticmaaleen oo la yiraahdo coin strategy la dhaho oo looga hortago yani qaabka argagixisada mugda badanaa waxay ka soo dagaal tagaan guryaha shacabka ay ka soo dagaal tagaan saasay ku weeraraan xarumaha dawladda laakiin marka waxay rabaan qaab waxaa jira in lagu dagaalamo dadka quluubtooda iyo maskaxdooda in ay dawladdu haataan loo baahan yahay taasana waxay noqon kartaa difaac looga hortago argagixisada sidee dawladda markaa ku hanan kartaa quluubta dadka ilaan dadkii waxaa laga yaabaa haddii xataa dhibkii uu qofka agtiisa haddii uu ka dhacayo xataa inuu iska qariyo uu yiraahdo haddaad sheegtid inaan lagaa hoos qaadina laga yaabaa oo dhib gaaro kusoo gaaro sidee marka dawladdii iyo shacabkii dhibkan uu gaarayay ay isugu xirmi karaan oo u wada shaqayn karaan waxay isugu xirmi karaan waxay tahay in bulshada iyadoo loo marayo qaabab kala duwan iyadoo loo marayo
laguna dabaqayo mar kastaba istiraatiijiyadii ammaanka ama gobolku lahay ama dawladdu lahayd in la abuuro waxaan loogu magac daro booliiska gudaha oo kale booliiska gudaha dadka amniga madaniga ayaa Soomaaliya yaqaanaan oo aan hubaysnayn ujeedaduna waxay tahay runtii in la abuuro kalsoonida shacabka iyo dawladda la abuuro oo badanaa fikirku ayaa ah in la dagaalamo sababaha yani in la baabi'iyo xindaaf u dhexeeya dawladda iyo shacabka sababaha taageerada ay u helayaan argagixisada iyadoo la rabo in la jaro oo qalbiyada dadka ama cadaalad ha noqoto ama ilaalinta bulshada ha noqoto ama ha noqoto waxbarasho ciyaarkii iyo carruurtii loo fududeeya ha noqoto ama xafiisyadii shaqada yani cadaalada tuso iyadoo loo marayo yani in hay-ado loo dhiso ka shaqeeya siday isugu xiri lahaayeen nidaamka dawliga ah iyo dadka shacabka sidai ay isugu xiri lahaayeen kaasi waxa waa Axmed Cabdullaahi Maxamed Kaboole oo arrimaha amniga bartay ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxa uu warramay wariyaha VOA-da Caasha Ibrahim Caashacuud